waxaan rabnaa nolosha waddanka inay ka faa'iidaystaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada 75% iyagu ah inay yeeshaan miisaanka ugu weyn ee go'aanka gaaridda masiirka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumarba dawlad aan lahayn adeeg bulsho dawlad aan dalkeeda iyo dadkeeda u adeegi karin aan lahayn isbitaallo iskuulo dhisi karin jidad dawlad ma aha sidaas daraaddeed ayay xukuumaddeenu waxay soo dhammaystirtay mashruuc dhammaystiran oo la yiraahdo mashruuca adeegyada bulshada oo wasiir Saalax iyo wasiirro kale ay ku jiraan sanadka 2018 ilaa 2020 kaasoo ka hadli doona iskuulo noocay aan dhisi doonaa isbitaallo noocaan dhisi doonaa shacabkeena sidee baan ugu adeegi doonaa si ay u dareemaan dawladnimada ummadda Soomaaliyeed ay u gaarto meesha ay rabto waa in waddanka dhaqaalihiisa wax laga qabtaa amnigiisa iyo ciidankiisa wax laga qabtaa adeegyada bulshada wax laga qabtaa siyaasad midaysan oo shacabka Soomaaliyeed kulligood ay xor u yihiin gacan ay ugu yimaadaan ay haystaan in dib loo yagleelaa waa nagi niri waa in la bilaabaa in dalka dib loo dhisaa waanagi yiri waxaan ka bilaabaynaa inaan dhisno jidadka bisha soo socota waxaa la bilaabi doonaa dhisidda jidka isku xira Xamar iyo Afgooye iyo kan isku xira Xamar iyo Jowhar waa bilow ugu dambeyntii waxa maanta aan ka hadlayno waa isla xisaabtanka si isla xisaabtankaas looga dhameeyo horena waa u sheegay haddana waa idinkugu soo celinaya haddii aanan musuqmaasuqa lala dagaalamin horumar gaari mayno haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin shabaabka ka adkaan mayno haddii aanan musuqmaasuqa lala dagaalamin cadaalad heli mayno haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin dumarka Soomaaliyeed xaqooda heli maayaan haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin dhalinyarada xaqooda heli maayaan haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin amaanada ay ganacsatadu ku bixiso canshuurta heli mayno haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin hadafyadii waaweynaayo oo aan idiin sheegay oo ay adduunyadu noogu soo jeesatay gaari mayno sidaas daraaddeed qof walba oo Soomaali ah waa muhiim inaad qayb ka noqoto inaan la dagaalano musuqmaasuqa si loo soo celiyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed isla xisaabtanka waxaa ka mid ah inaad dawladdiina weydiisataan xuquuqdiina waajibaadkiinana aad ka soo baxdaan isla xisaabtanka waxaa ka mid ah inaadan dawladdii aad lahaydeen aadan marti ka noqonina guryihiinna inaadan marti ka noqonina inaadan u malaynina waxa laga hadlaa inay yihiin madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre waxa laga hadlaayo waa idinka waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa dalkiina marti ha ka noqonina ugu dambeyntii la dhaqanka adduunyada hadafka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu dalka ku hogaamiyo aniga iyo xukuumaddeeduna inaan ku shaqeyno waxay tahay kow cid walba aan la dhaqmayna marka hore inaan ognahay cidda aan matalnay inay tahay ummadda Soomaaliyeed labo inaan ilaalino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed xitaa haddii ay kalifayso in la dhibtoodo ama la gaajoodo